nolosheedii aniga waan kuu soo socdaa saacada kadib korkaaga ayaan taaganahay katiinada qaaligaas oo kama hadlaysid taas waan kuu soo iibinayaa waan kuu keenayaa nolosheedii taleefanka waa jarayaa baay nolosheedii صاحب نيكي وقت بي هاي بانتر تكتونوغيا كنت أنا وصوص هذا السلالي هاي جولدن باكستر كان حواران aniga ayaa ka kaseenay labadiina sidan dilaayo daawado ku raaxaysta أيدلين مايا أيدلين أنا قصف عني دقيسو منا أرنتنا دو أجد كمسي دانا وكوا يوكاسينا يلا سعو أنت كل شيء بالكيكة كالي عشاء حقيقة قابك نكا مديد اللي قمو دا فيرسو وحيلا تاني كانت إن لغو طلقا إن مديد السحون لغو ديلو تالي هورتا نكان يا واينه تهذا كلاته نلش وكسلعو يا ورفاضي أنكو دا وكوررسنا نكان بين آدم يا مسجيني وهورتيشك شاشتري قفل بو نقن كرا بلس أجان كم عصباسك وين أذكتها مركو روبك الدائرات كقفك إلى الراعو لكن هدي مقالين تلطورو ملاقو وكسوري عدونا مرؤون وكاد إسباردها قادني وراقدها كيف بلادي أريا ما كله كفورة أنا شقي بقولنا لابتي سوى سوق دبت يا بابلا كساو قفتي سنة كل قصة ديالا وتصومها هن يا بابلا وكذا ما تواجباتك أنا يا جذنايو اوكي تن ماهن مدي حكتنا ماهن تن كسي حكتنا ماهن بلس لكن مسارتنا يا انفعيسو
walaalka mantu markino asxaabteer meel isku soo urursaday bas oo anigu waan dhamaadkii ku dhaayay badbaadiyaa ما تعد إيكابت بيننا إسلام الله قعدت ذي تقولي من إسا قلنا ماشي متى قوريا وحن سوقا أنت إنك لفري سوق ليا هذا لا كل هذا ها بابنا أوريا أي هلبت المسألة ذيك هلبت من كده قدك صوب حدي ودعين بانغلور أيجي هدير سنة أيجي من كده دلو أو كوك السيو إن هذا هلبت كوكينا وكوسو قاعدة يا يا تاوريا باسريو كالا هرتي ذي مو marka hore ujeedkeedu waxa uu ahaa aniga hortaada inaan imaado laakiin aniga baasir miili متقانا ورا عدل ليست ما نقول يلا يري هذا قفكا haddee ba sidaas tahay sida cambiyo kale aan kuu jarjaraya يا تاوري هذا hal ka mid aan qarinin waa magacayga gunnaa waxaan nahay nin dulqaadku ku yaryahay aniga in muddo ayaan waxaan sugayay ninkaas inuu gacanta ii soo galo kadibna aan ka takhaluso laakiinse fursadaas waan heli waayey maanta adiga ayaa ii jooga hantideeda adiga ayaa iskale keliya waxaan kaa doonayaa ninkaasi dunida in aad ka haajirisid taas ayaan u baahanahay ma fahanta hadalkayga wax garad ayaa tahay
nandane oo kashmaami maadayna adiga ayaa mas'uul ka ah aniga waan baxayaa bye kale waaba ku soo bacay telefoonka maxay ugu dhigaysaa telefonkeyga waa hadaaro ma qabanaa dhibaatada ka soo maxay hey beleza waxa ku idina quruxdaad miyaad ku faanaysaa luga dheer haday kugu yaalaan ha ogolaanin in ay duurka ku geeyaan haddii aad maqantaa la'aanta waa noolaan karaa laakiin kunaa adiga la'aantaada ma noolaan karo I hate you waryaa I love you xabiibti balse waxaan kaaga digayaa marnaba inaadan isku dayin nolosheeda inaad ka fogaato waxaan ku dhahay waan ku nabcahay gunaa rafiila u maalin guriga ma uusan imanin marka ma soo eegi kartaana haye hooyo anaa soo fiirnay قلنا هوريا باتر ربي ما ركتنا ما قلنا تاني مركي وارس عادي أنا حد كيقول لك وايه قلنا جولدن ربي ما ركتنا waan ku dhartay soo maaha ima aaminaysid miya guriga ayaan iska joogaa aniga odagtay inaan adiga been ku sheegane khamri isku daldalaya karaabka laga yaabaa inaad ka heshide hey maana rabi halkan ma joogayna maalmood markii meeshaan is joogo lacagtiisa haystinaya qamaar isku dheeli waa laga cunay wana gasbiida wareeri laakiin ma qaan halkaas ku sugan ku tuwa iska geedanya hello kala adiga 2 daqiiqo xitaa ma idaninaysid miya hore ma ka bixeena maxaa ka qaldan walaal adiga maxaa ka qaldan markaan ku soo dhawaado adiga carray markaan ka fogaadana telefoonad iga soo dawacay maxaan ku qabtaa walaal kubad ayaa ila muuqata adiga ii sheeg aniga seen kula muuqdaa ha ii sheekeena sideen kula muuqdaa ma hadii sheegtidna aniga sideen kula muuqdaa wax walba way iga lumeen kibir badan taan ku arkaa jar telefoonka bad boy noloshu way khasaartay wax walba way iga baabeen rafiyow soo kici halka soo saaxiiba kaalay soo seexa maxay tahay dhibaatadaad noo geysanaysid maxaa kugu dhacay inankaygii hooyo orado cashee seexo bersi waxaanaa soo booqanay oo xaaladiisa ka wardoonaya okay walaalka furaa isiinoo isbuuc soo socda lacagta ku siinaya ha iga xanaajinaya lacagta markaad bixisa ayaad furahaaga qaadanaya walaalka kii telefoonku wanjaa waakaas asxaabta gacanta ku soo dhigta ma aragtaa waryara walaalkaad sheegaysaan aniga aan la kulmin waayana meeshan maxaa ku keenay maxaad ka soo doontan isa dharbaaxan labada dhagood ku qarxiya baan ku yiri kaale laakiin waa maxay sidaad isoo fiirinaysid indhahaaga waxaad u malaysaa cadceedda sida ay indhaha dadka uga qabatay indhaha guyahayaan inta kale meeshan maxaad adiga iyo asxaabtaada aad waqtiga isaga soo lumisay inaad timaadaba looma heen anaga aad noo sheegi lahayd Soomaaliga wax walba xalin lahayn walaalka midaada kale kaatimaha waaweyn leh maxaad meesha ugu soo khasaarsan walaalka wax walba iman laha wax xalin laha Soomaaliya marka meesha waxaan ku yiri hey ukaadi baan ku yiri hooyada maxaa macnaha ma caynay macnaha hooyada baan ku dhaaranaya ukaadi ninkan baan ku yiri ninkan nin khatar weeye baan ku yiri dad fara badan oo hore uu soo ugarsado ilkaha uu ka soo daadi telefoonka markaad iigala hadlaysay sababtaad i caysan xitaa marka ii sheeg hore telefoonka walaalka ma waalan tahay adiga mas ayaad u eegtahay moogtahay waan ka cabsoonaya waan ka cabsan lafeegan baqay
ama isirusa waan ku taageeraa walaalka u sheeg walaalka inaan taageero walaalka saaxiibkay aad iyo aad ku taageerada hay walaalka ma taageerta habis oo wax ma ku heystaa boo iska bax fasaxaatana hay walaalka waa ku taageeraa ina mar walaalka ninka waa soo noqonayo dhay saaxiibadii ayuu ka xisay lama baana ninka inaa sii dayso waa inaad kow ka siisaa gawaantiis na u dheere ninka nin lejana waaye iska daha iska baxaniyo celebrity-nimadeydu aaminsan adna saaxiib fiican aad helayso hay saaxiib sidaan soo sabtay ma aragtayna ها وجدنا فير لكن أنا حوجا وعمصد مقتهي صحيتي سيدا سان داوده حتى wax badan gurigaaga waan daawaday horey ma kugu sheegay may wara fiir xaaskayga waa xaaskaaga way anigana walaashay way Soomaa marka iska dhaaf yaaqay waa caadi aroskaaga in la boobsi waa adiga laakiin waa khatar waxaan doonaynaa oo gabar walaashay oo kala oo beel oo khatar ah wara fiir aad maxaa ku haleysaan وريا قلنا هذا أرينك كوجا إنه كوكا سينما وقتها أرينك هذا بس كراف محوق راعة مرة ماشى قبر هذا تماده يسقوا يسبدليه قرقر ولا يسبدليه وروح أسوأ عادي نيو ولكن واحد تبى قبر يرهد نيو قبر بانو بهنا وريا امس جرى ينكو شيء كلاب كاس خمري قمر هو هذا سوق مدين مرة بعدين ما يلصق ور كوان كاسي هاي الله صعد دقنين تقاضو walaalka sid maliis wax mu jiraan lacagtan qasaar inaa soo cishti li rabaan waayahay goormay wax bare khamaarki qasaar mooye faa'iido kuma keenayo mideeda kale hay laabin gabar inay kula dhalatay aniga waxaan kale u leeyahay male sababtoo saaxiib adigoo kala haysta saaxiib ad amal qaf hees in sulwil ma wala baanamayno inta oo socotaanad waxay rukaado kuma maana diga xaga sorisa مدة كلني كان سيجار ولا سينيا دخسة يا أخي دخسة لنا ولاحو لنا ولاحو نعس ويدي لي كورن شو ولي يا كودلينا حتى ما أنا قعنتي إذا كودلا مسي قعنت هذا إيه سكوبور لا ودنا دعوة الله ما بانا جيتا هل شهلين سي شو مع أخبار يسوع هذا بدل كي قصف عنه دقيسو أرين هلس أيان كوايا بابنان ودكتور حالتي سوات كورا سامعنا سوق الوحو أمر كبحي مانجو إن السوري قعنت لغو صوديو عولالكي شاعواكو إسكدا وحو دونا الشيء وحو دونا السماء أنا مقال كان أمي مان إنا كنت برصدو فقير نماي حوقي عيان مالنا يا لكن كان مدن كيس عيان مرسينا بابنا عنك وضانو kibirkiisa batay cageeyaan hooskeenaya waanu ku tusinaya kibirkiisana jabiyo gacantaadu waan ku dhimanaya laakiin ugu yaraan mango maxaa ku samaysayna ii sheegna ogaadayaan doonaya sashuu waa ogaanaysaa weliba goorrow ayay ku soo gaaraysaa akhbaarta iyo waxaad ii sheegtaa tallaabada xigta aan ku qaaqaayo الله تكدس جيم هان هتا عدوي كما عفيو وأوشيك ولا إنك هذا ومقلي واي قلنا ولا يا هيا ورانا بكوجوجي محل ولا صوت عينيهم صوباس ولا لي صوباس magacaaga waa baalaa soo mahana haddii aynu nahayne maxaad doonaysaa qaalay runtii inaan ku garaac miyaad u baahda أيه بيلا مركز عرريسي ماركنونا أديقا عادو بدبودا يانكو داياقي waxay biga heesaa aniga waxaan boodbooday inaan taabtadareenay ku fiiman kan yaqee daybal abo to naga tagnaya
dhegeysta akhyaari candhuuftan oo kala yaqeeyo ayada haddaan wejiga ugu shubo bal sidee noqonaysaa hadda waxaa ay aad aabbaha kaligaa inuu ku dhalay gabar hadday kula dhalan lahayd waxaad ogaan lahayd dumarka sharafta ay leeyihiin dumar dambe agagaarkeed haddii aad ka agdhabaad iska jiryaa kala biyo hey waa imaanaysa asxaabtina ayaa garaacaysa si fudud inaad iskaga baxda ciyaartaan midin ciyaara anigana war ninkan aabiis ma taqaana adig aabiis ma anigay weydiiyey hooyadiisaa joogtay orsa weydiiyey horyaha kalab xumo lacagta aabiis oo shaqaysa ku faanaya taa laakiinse isla lacagta aabbaa ayaan kugu aasayaa midna ogow bushbaa waa aniga walaashay geesigan walaashiisa walaal noocoo u yahay ii sheeg bal isaga hooyaday markii laadaas wuu dhegaysanaa anigana sidoo kale markaa ula hadla wuu i bahdilayaa hooyo gunnaa qofku u gacan qaado habaaraa ku dhacay kaal raashinkaan jeclaa iim sameymya maya hookee waa kaa ogolaaday aniga kuleejka sidee si wanaagsan oogu tagaa ii sheeg bal waxaa wanaagsan gabdhaha madaxooda hoose inay socdaan maxaa dhahay gabadhaha sidaas kuma tarbiyan miya aamusee cuntada yaakha ii sheegnoo sidee aniga ku aadaa gudaha inuu ku jiro inaa ii sheegta ah loo baahnaa hooy aniga qolkaygan galaaq waxaa akhrisa rawaaya haddii naag lagugu daro shanshana u dhale rimoodkii dhib adoo weynaa kartoon daabee fiirs qotab dheer leh ogalanyaa sacadkii gabarta haddii ku taageertaa badbaadi haddii ka hor imaadana bis waa hooga ku bilaabaa miyuu daawano aniga qoriga haddiyaan ahay iidan waa midii i cabaynaysa halo xagee joogtaan guriga rabiya ayaan joogaa aabbahe inuu kula kulmo ayuu rabaa adigana waxaan kaa rabaa sida nin tuugo kale inaadan u soo labisanin nin sharaf le iska soo dhigaan kudhaa labiskan iska soo sax haybideegii jecelkaa ku soo wacda mi ah ay socaysa cutag horniyo jecelka dhibaatadu leeyahay wax ka moogida naga aamuseeqe aryaa qaxwadan kuu shubay ma fuuqsatida aan dhinnax gabartayda shahaaday wadataa mudana midaas moogeen sidoo kale qof wax barato cilmi la waaye xafiisay ka shaqaysaa weliba hotel 5 star ay kasii shaqaysaa mudane aniga midaas maanan ogeen laakiin xay kuugu taallaahe nuucaagoo kaloo mooryaana oo jadiifa oo jidku jiraa ay ii soo jeclaata asay rabtaa inaan ku daro boyntiga loo baahnaa hadda ayaad kaarisay saddexda boynti hore waxay anfaca maba ahaynba midda kale waxaan kuu sheegayaa gabadhaadii aniga waa isjecelnaa jacayl adagaa naga dhexeeya haddii adiga khilaaf yar aad soo dhex dhigtid jacaylkeena waxaad ogaanaysaa gabadhaada waddada inaan ka kaxaysanayo hadhow markay cunugii dhashana gurigan kugu casuumaa waad noo ducaynaysaa waa intaasoo keliya guurkii waxaad sheegaysid wax sidaa u dhib badan maba ahaba marka adiga gabadhaada waxaa kuu fiican si sharafle inaad gacanteeda aad u saartid midda kale marti walba guriga kuu timaada kafee iyo shaay iyo caano iyo waxaas inaad ismaa dadka qaar dabeecaddooda khamri iyo biir iyo waxaas inay cabaan iska jecelyihiin soo maa marka dalabka kala ogooya okay ka qaado walaalka waryaa lacagta lacag maaye
سامع هذا ميلا وريقي محمد مجرد ونسيان دو يجوجي بورت ما يجوجي ودين بها وليتو سوغور لعقت وبيع ديارو لكن هذا تو اكثر تو اسكان وعما يمو وليتو ورا لعقتنا ديبتا لا ربا ديارو ديو لو لك بسان ديارو ديو ان كودا لكن وليتو جلي تيلين horta ilma le وريا باستر اياته سيده aniga lacagtina u dhuuman kartaane waa lagu garaacaya si xuna lagu tuma wali hada la wariya lacagta way walaalka fiir hal midan ku sheega laba maalin oo kaliya si lacagtaad markii ana ku keenaa ku diyaar wa mudane ninka warkiisa ka daaya madax ka jar ma wariya madaxa hadii aan ka jiro sidee aniga lacagteeda igu soo celinaysaane madaxaadan ba goyna kabarnaa waan ka jaraa madaxa haddan ka goyna laba maalin iska daaya hal maalin xitaa kuma siinayaan ku dhahay madaxaada meeshan ku soo afjaraya dafadaan u tuura waa ku dhamaatay ku dhahay ma ku tuwa sameeyay walaalka mangana xaaskiisa way kala kacsan tahay ku dhahay mangana ninkan xaaskiisa lee balmiyo maalin walba xaaskiisa inta u taga maaragtaan saadona aan ka yeelanaya happy birthday to you Oya bester bato aniga miyaad i doqomeysanaysaan mar walba gacanteedu wasaq ay noqoto walaal maxaa dhacayna mango waa la dilay ya babanaa wuu soo socdaa ariya babanaayo waqtigii waa la gaaray balse imika xaaladdu dee farahayaga waa abe ka baxdayba babana walaalkeena waa la dilay waxaan jeclaan lahaa sidaadoo kale inaan u noolaado karmala shuraaka ma noqonaa ani iyo adiga ii sheeg waraa maxaad i dhahday waxaan ku dhahay shuraaka ma noqonaa marka hore maxaad dhahday hadalkii koowaad karmala mudana dhawriya adiga levelkayga ma tiid markaad isoo gaarto ayaad magacaas iigu wici kartaa oo keliya hadda mudane oo keliya ayaad i dhehaysaa mi fahamtay mase wuu ku fahansiinaya
orod qaado beesa ayaad jeceshahay waa mushaarkaad shaqaysatay wejigii ka leex xumaanta qaar run ahaanti farxad badan ayay leedahay in aan arko adigoo nool waxay ka dhigan tahay in aan ku tuso heerka aad taagan tahay meel ka sii sarayso in aan taaganahay laal karmalaa weligaaba daaha gadaashiisa ayaad ku dhuuman jirtay balse maanta wejigaaga bannaanka ayaad keentay yaa waa cidda kaa dambaysa oo aad isku haleynaysaa adiga carruurta yarkaaheedoo agteeda ku soo koray misena gurigayga sida eeyihii hore fadhiyey ayaad iga kaxaysatay boqortooyo ayaad samaysatay laakiinse nin sidaas u haraya aniga ma ihi isla dadkaad kaxaysatay kuwa aad kaxaysatay ayaan kugu soo jeedinayaa waxaana dhici doonta maalin in ay lafahaaga isku dagaalaan haddaba wax walba waad fahamsan tahay soo ma okay ilaahay ha ku soo aruuri waan ku sugaya walaal waa ku barya aniga fasaxaysi ninkaan meydkiis halkaan aan ku aaso maango waa la dilay iisoo ogow badeecadda halka ay taal walaalka situu maxaa ka sameynaa noo sheeg hadda iska daaha iska noolaaday eyga inta uu qaylinayo waxay ka dhigan tahay wuxuu diyaar u yahay in uu wax ugaarsado haddaba iisoo ogow qofku ku tashanayo ninkaas waayahay taliya marka hore annaga ma haynin caddeen dadkaasi aan ku soo xirno balse babanaha kooxdiisa qaar ka mid ah ayaa caddeeno noo haya iyagaana ku raadraacayna sabab la xiriirto saraakiisha sarsare ee musuqmaasuqa iyo weliba samaynta siyaasadda ayuu ninkaas anaga gacanteena ugu baxsanaya ninka intaan kadib in la sii daaya maalin waa inaad soo xirtaa weliba sida ugu dhaqsiyaa badan waayaa taliya waxaan kuu ballan qaadayaa babanaha ninka la yidhaahda gacanta inaan ku soo dhigo awoodda sharciga waxay tahayna waan tusi doonaa haddaba sharcigiina wuxuu diyaar u yahay babanaha qabrigiisa inaan qodno sariirta hoosteeda haddii aad ku dhimatay xitaa sharciga waa adigu aabbahaaga buuraha korkooda waa lagaa soo saaraya horta sidaa wada ogna wax walba qadar ayay ku dhacaan haddana sidaas ee taa ficlada xunxun halkan ayay ku soo dhammaadeen haddana xereg ayaa taa waa inaad annagana soo raacdaa soo soco soo socor soo raac horta wax walba waad sidaad sheegto waa ay qoran yihiin erayadaas afkaaga kuma wanaagsan ma waxaad doonaysaa yunufoonka awooddiisa inaan ku tuso annagaba awood waan leenay wax walbana waa la xumayn karaa hal amar oon bixiyo keliya halkan waxaa imaanaya dad badan awoodda babanaa uu leeyahayna markaas ayaad ogan doontaa isbatore haddii aad u baahan tahay babanaa korkiisa in ay gacantaada gaarto dhowr kilomitir waa in aad soo socotaa si aad babanaa korkiisa u taabato haddii aad aniga ii xirto xisbiga mucaaradka way dacwoonayaan xisbiga muxaafadkana cadaadis daran ayay adiga ku saarayaan ganacsigaan aniga leeyahay siyaasiyiinta dhaxal ayay ku leeyihiin howlahayga nama celin karaan askari yunifoomkan aad wadato run ahaantii aad baan oga helay haddii aad adiga leedahay waajibaadkayga ayaan ku dhaqaaqayaa dhib ma lah haddii laakiin aniga aan isfahanno nolol qurux badan ayaad ku noolaanaysaa xataa gaashaanla waad noqonaysaa waryaa afaa ii boqsan looma hadlo mar aniga gacan haddii aan kuu qaado waxaad ogaataa mar dambe inaan hadli doonin taasna aniga hadda waan awoodaa doqonkan ii soo kaxay waryaa maxaad tidhi ogolaanshaad jeelka ku geyso waad haysaa miyaana laakiin dee jeelku inuu amni yahay inaad hubiso miyaanay ahayn tali ninka oobiga qoraay wuu dhintay ma noola shiri qof xabsiga gudihiisa haddii uu ku dhinto xabsiga ayaa lagu dilaa la dhahayaa sooma
inta aadan xabsigii geenin ka hor naftaada badbaadi adiga looma baahna naftaada in aad kalifto si aad babbanaa gacanta ugu dhigto hana isku daalinin sida aniga qorsheeyay haddii wax walba u dhici lahaayeen babbanaan saacaddan xabsiga ayuu ku dhex uri lahaa isaga taliya waxyaabaan oo idil siid iyo sabab u ah ciyaarta hadda ayay bilaaw tahay haddaba aan daawano ciyaarta siday u socoto sharciga markuu gacmaha gadaal uu marsado waxaad ogaataa ugu dambeyn afka inuu ka shaqaynayo mii fahamta hadda kaal adiga dantaa leeda waa maxay jumlo ama ii qaadan rabtaa fiiri hal jumlo ereyada igu hooyo adi maxaa kaa qaldan horta aabbahay si xun ayaad ula hadashay nacas ayaana tahay dabeecadaada xun looma baahna aabbahay hortiisa inaad ku soo bandhigtid dambe si qaldan haddaad ilaahaysa waa ku dharbaaxaya horea dabeecadda iyo tarbiyanta aabbahaaga ka soo bara aniga xamaali furidoo kale maxay la dhaqmay okay hadda sidaas tahay baayaan ku dhahay aabbahay hadda si xun ula hadashay makuula joogayay horey go'aanka labadeena ayuuna dhexeeya xiriirka mid saddex qofood ka dhexeeya maayo laba qofood oo keliya ka dhexeeya waana anigii adiga hadda kadibna ma sii soconayo maxaad ka wadaa waan soo afjarbaay kaalay aan soo afjarno maxaa ka wadaa wax walba halkan ay ku soo dhammaadeen waa micnaheeda hagaag iska bax dibna ha u soo jeesan aniga xitaa kalama jecli xiriirka naga dhexeeyna halkan aan ku soo afjaraya hayri lover soo hadal walaalka xilliga kalaaska xilli ayaa la gaaray aniga xitaa xilliga arrimaha soo afjar la gaaray kaal adiga weligaa jacayl ma samaysay walaalka aan weli wax ma jeclaanin naagta jeclaan sidee joogtaane laakiin koo saaxiibkii markan oo anaag jeclaade haddaba asaga noo ballame hal dhalo shikilin noo soo qaad caawaan sheekaysanaynaa haye walaalka tartiib ahayn oo yaqee haye loofar عكوسك أشبنك ده وريا حلين لبس لها يا نجوجا عبو أما حسوق ساعة دلدل كبح أنا بدي كبح هذيك اللي مركورة بدي أساس ما تري أنا بلا وي إذا جالس ولا الك هتو ماركلون بلاي وه ما حاجة لي ماركلون عقل بيجاجا أي كجبينا يعني سيدو بدو ماركلون هيك مرة نابع إنه جيست لكن ما ماركلون وير نابع إنه جيستان كورني أبو حنون جعل كلام كهدلو يعني أتذا كلا يقي عند جعل قفت قف كاسنا وصيحة قال ماركلون واي من لبر كيال هذيك ما خذ كرتان محق كرتان جعلك ساس عمل واي يعني يدس كاجبيها كبعدنه وفريسه واي قد يا بو جعلك كمان بلا انسه افرحيه فاطمه لما انتينا نولشيدا ku ciyaarteen ugu dambeena waa kana yaqay booskeyga qiyaanteen hadalkaaga waxaan ka dareemay waxyaabo badan oo gudaha ku jira inuu ku gubayo indhahaaga socdaan laakiin se qamrigaaba ku sii gubayo daldal waa qaboobi dag abo walaalka hal midan kuu sheegaa digsiga ma arkin dabka waa lagu hee karaa laakiin birta canjeerada dabka ma lagu hee karaan waayahe marka haddii lagu heeyo xitaa canjeera ma lagu dubi karaan ii sheeg be waa kasi kabacdi lacal haddii lagu dubi canjeeradaas ma la cun karaan ii sheeg be maya waay ma oho beel abo idhageysa hal midan rabaa inaa kuu sheega magaxnaa qiismo dhalada intay ka faariqayso hadal afka uu ku furan yahay laakiin markay dhammaatana abo markay dhammaato anay saqraanaan noqaa dhalada damada kaga dhiftaay waraa gabar xun ma arkinoona aniga dhala madax ay jibisay adoo booskayga san ina dhala madax ay jibisay xanaqa suga idhageysa booso gabdhaha ma arkinoona yaqdo sida baakada siyaarka camal in lagu soo qoro ee siyaarka dil cawaa limaha moona gabdhahana in la soo qorano horta aniga ay jeed ma arkinoona gabdhaha baaritaan far badan aan ku sameeyaan ku dhahay biyadiyaan ka diyaariya hadafkeena waxa waay ma taqaanaan gabdhaha xunka inaga guuleysano أوريها أبكوسكا جلاس كيك إبرس نقضي مع جيرانه باشا كشوب يا قيس سوي ها فيري قبلها قار ويلش وحي واسان دبيل يود ببو نالكنه مر وقفا مر والد دميا هو مجدي نلشنه واسيدا سوكرنه
مرة وافتين مرة ومقدي قلبي الله يهديك الله يهديك أبوسو عجيبان كده يا قي هو نلاش هذا ماركنون أمريكي يجوا هرسوا يا قي أضو حكمة كهلا أنكو أرك يا قي أذيك هواك بحثت ما يعني قصة اسمني أرجع رفيع آخره عفير وحك ورثها رفيع وين أبوان عصب ميان إيشك ما صاحب كي يقولوا قفك درج إباه بأوذاك يسي ماركنون قف كاسا صاحب كاجا ربط مركا عنك أنا صاحب كينا إنا وعنوا وراه قوسو محسوجينا دقصان كده يا قي ووع صاحب كينا نو كنت سوريا مع رفيع عكوس كده جس رفيع سوريا بماركنون اسكو ميد ليه ما قاعد يحكي البدلين ماله هي أبي كنا بكسو عي فيري بان أرسال أنت قصار يا قي لعقت اللي قعون الناس وعشتر واحد أولا كي رفيق تلفن ما قبلوا ياسي markuu waqtigu wuxuu gabdhaha kaliya noloshaada kama fogaadaane rag saaxiibada xataa way ka fogaanayaan marka la wacbal babanaa waxaan gacanta ku dhigay buugga rajistaraha ee raggar gubta ninka u shaqeeyana goordhow gacanta aan ku soo dhigayaa waxaana balan igu ah lugahaaga hoostooda inaan keeno waan kuu keenayaa kadib sida caadada aad buller ayaan ku dabaaldegaynaa walaal waryaa baastarkan ilaa uu ka hadlo qof bii sii karaa habaratee ma jirto xitaa dhibic biile ma siin karo ngaafiiri kii meesha dhan buuqaska kiciyo lacagtan isdhiib hataa mara yaaqay walaalkii rabi waxaa leeyahay kolojka foodaska wadaa eegaas eegu dhali mar walba wuxuu rabaa kalaabkaas buuq inuu ka kiciyo balse maanta gacanta ayaan ku soo dhigayaa ina keena idin soo wacay Soomaa anna sidoo kale ma wacayno ها ستايل كذا وينو حتى هديك سو هذا كقبل يا أتشكلي كستوغا هاري مركا إنا هذا واحد هذيك كان مأسيها إذا جالس يا قيو هذيك واحد والبا يكون سقرت إنك جوابتي دواينو أبوها ورت هذا كلنا يوم ميدان كل شيء عن كداي أنا جا ماركنون بلاي إسكتي جايان مركا جعشة إيجا وحيربان كوسمينا لكن مره هذا نعد ماركنون ويكات جايان ويكون قدنيسنا يان وحيربان كوسميسنا يان حاجة كلا لقى راعي أبو هذيك أنا مركا إنا واحد ما أنا وراها وأسبدل أبوها وين بص أواتنا يا قبلان جوجل لا ماركونا ما أنتوا نقصوا بعسها ما أركز ذو في ربه ورجوجل قال ما وجود قال ما عصنا أنا قالوا بحينه جوجل الناس كقرنا يوم مليها أتذكر كلا يا قيو الأحمر إلا استحمر عملك سبعة أنا قلنا لكن واكو جرم حياة الاستنيك إيجي قصيصنا أي مقصوب إنه أبوه ألو بي هو أبو هلو 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 أديك بقى مخلوصة ما أنت ده هلو يقول العليا هلو لوكيشن كأي كوسو شرقرينا صدق دقيقة إمه ماشان جو هلو محل هذانا أنا جينا دي مقشوان أوجها إستدق دقيقة بدن كوي ما واكله يا أبو أنا جوا كوجيدا يا أمي قيان كرتيدان كداي والله وعي أديك ودريمو يا قيو أديك هدارت تسكبحان كداي دمشق دي السقنع لكن أنا كمشي أنا كعبينا عسوي أسوأنا قتك به gabdhaha si xun ay kula hadlayaan marka xigana meel kale kugu balamaan kale haddaa xiriirkiina waa sabab jara ma dhehaynin adiga waa rabay inaan afjaro laakiin qalbigayga ii diiday halkan aad igu wacdee maxaa daranoo jira ii sheeg 8 Sentebbar waa adiga dhalashadaada waana maanta ma laga yaabo inaan xiiseeyo dabaaldega dhalashada waxna yuuna qasinno keliya anigii adiga jecelkeena aan u dabaaldegno allah inankaygii maxay tahay sidan ooyo adiga maxaad iiga hormartayna aniga hadda meydkayga yaa aasaaya waa maxay sidaan ii sheeg walaalkii yaqay adiga istaagno jiifka ka kac aniga yaqay mar kale si qaldan ma kula hadlaayo walaalkii
أنتوا كذا أنتوا يا غايل بنا hadeertan anaga iyaana daryeelaayo rafi hadalkayga haddii aad maqli lahayd adiga waxaan kuguma dhici lahayn xaloo dhan inuu ku soo wacayuu doonayay taleefanka waad ka qaban weyda rafi wuu dhintay saaxiibkeen rafi yaqa gunna uu imaaday kac waa ku baryaa kac saaxiibkeena waa ku sugeynaa istaag yaaqaya kaalay kunaa kaalay kici waad aragtaa halkan ayuu jiifaasiga uu diiday inuu kacaso ma aragtidna waan ku baryayaa kaalay la hadal kacsoo kuma lihiina waan ku baryaa kaalay hey gunaa walaalkii kac waan ku baryaa waxaan ku ducaysanayaa si degdeg ah in lagu soo daayo meeshaan waa ka soo bixi doontaa walaalaha ka welweyn okay maanta laga bilaabo markino gunaa garaashka niita adaa iska leh baastarkan saniya caawa waa inuu dhintaa imise jeer ayaan ku dhahay sigaarka ha cabbin saaxiibkay gunaa maalin waxaa la gaari doonaa u baahaysa sigaarka inaa cabtid intay nafta igu jirto midaas inay dhacdo macquul maaha dinni baabuu ayuu gacanta ku dhigay arrimahaaga ayuu la wadaagay hey golden baastarkan kibir badan anaa kaba kasinaya labadiina ninkan saan u dilaya ku raaxaysa dilkiisa macnaha saaxiibtinimaday leedahay ma garanaysaa kelib iyo ilaa subaxdii laga gaara jaanisisi lacagtaada inaa kusii diyaaraba waryaha kalaabkayga ma waxaad u malaysaa bulshada inoogu adeego khasaaradaad ii geysata lacagteeda waa inaad bixisaa lacagteeda dhan meeshaanitii ku dhammaatay jaanisisi ma ku dhowyaane walaashiis markuna fushwaa wayno hooyadii saabka daran waa kalkacsantaan xataa waa keele jaanisaa ku raadiyo hayim ii balminaysaa labadoodano waa u baanahay walaashaada iyo weliba hooyadaadano doqon hoo rafi warayaa muhiim ma ahan dhalada qofka jabiya ee waxaa muhiim ah dhalada qofka lagu duray iyo weliba midka ku duray bester iyo bester ku dhale midkaada waa balan buleera laga shida waa lagu dabaaldegayaa soco waryaa doqonyo soco iga teg waryaa horta adiga gacantaada waa igu dishi laakiin adigana usaa gacantiis kugu dili doono bularka haddii ashidid maarkino dhimbilyihiisa adee jirkaaga guwaaya sida tu
muhiima qofkii inuu qorsheeyo wuxuu dili lahaa balse qof walba dil kasta waa lala xisaabtamayaa la soco gunaa cuntada kuleel waaye kaalo cashay wiilkayga wiilkayga wax alla waxaad jeceshahay samee laakiin ha samayn wax hooyadaas sumcaddeeda iyo sharafteeda hoos u dhigaayo fursadda uu ku badbaadayo aad bay u hoosaysaa dani ma awoodo adigoo nafta kaa sii baxaysa inaan ku eego balse qofkii xaaladdan ku soo istaajiyey balan waxaa igu ah inuusan iga badbaadin nabad ku naso labada gacmo baabuu waa inaad baabi'isaa ugu yaraan markaas wuu ku soo raadinayaa inta uusan adiguse ku soo raadinayna waa inaan kawka siinaa mii fahanti hadda waa fahmay gunnaa fursaddan ha iska beerdareenin ha iska beerdareenin ayaan ku dhahay ciyaar aan fahansanin ayaa socota dekadda ayuu la wareegay kadib maango markii uu dilay annaga middaas waan fahmi weyn si tartiib tartiiba ayuu haddana wuxuu u dilay finnii taana sidoo kale waan fahmi weyna annaga ciyaar aan fahansanin ayaa gudahan ka socota waa kuma shiri halo mudane gaariga waa lagu keenay walaalka gaariga waa la keenay maanta waa salaasa waana maalin wanaagsan oo musharkii baa la qaatay u sheeg keligay inaan u tagayo weliba aan gaariga gacanteeda ku soo kaxaysan walaalkaa gaariga soo doonanayo waayahay mudane babanaa wuu soo baxay
كنا gaariga asbuuc kadib in la keeno ayaan isku ogay waa maxay sidaan kadiskaa loogu keenay waa wakhtigaad la kulmi lahayd ninkii adiga laguu ballamiyey waana salaaso sidaa ogow u sheeg gaariga keliga inaan soo kaxaysan walaalka kaliisa gaariga soo doonanaya waan ogaa in aad i soo raadi doontid adiga sidaa darteed aniga ayaaba kuu imid waan ku koray aniga ciyaartan daroogada iyo weliba kiimikada warkeedan si fiican u aqaana dhiig walboo bannaanka yimaado waxaa jira sheeko ka dambaysa anna sheekadaas inaan dhegaysto wakhti uma hayo hawalwalin adiga goordhow waan ku dilaya balaakii waa ammaanlaydayda aan dunida ugu jeclahay adigana waxaad ka mid tahay dadka aan dunida ugu jeclahay waan ku farxi lahaa haddii aan 100 carruur dhali lahaa xitaa haddii aan dhali lahayn waan ku farxi lahaa aabi qorshaha wuu fashilmay war haddii dibadda laga ogaaday baabaa in nolol lagu sii daayey ganacsigayagu mid soconaya maaha waa xaqiiqaan ku leeyahy ninkaasi inuu dhintaa war haydhameedkiisaan doonaya inaan arko ciidan iyo cid alle ciddaa doonto kaxayso balse ii keen walaal waa ku baryaa haydilin walaal baryaa asmeenin walaal aniga waxba ma sameynin waa ku baryan iska siidaa ani saaxiibkeen waxba ma sameynin waa ku baryaa walaal waa ku baryaa walaal waa saaxiib maxaa ku dhacay walaal oo jeeda walaalkii saaxiibkeyga wax ukaade waxba u dhacay muxuu ahaa haa
bahashaan waa bahasha keliya dunida aan ugu jeclahay haddama waxuu ku dhahay qofka keliya dunida aan ugu jeclahay ayaa tahay saaxiibkaaga hore siduu yahayna calaamadda wejigaaga lagu sabro waa aragtay saaxiibkaagana sidaanu ku baqay waryaa fursad weynaa gacantaada ku jirtay fursadaas waa iska baabiis maxaase kaa qaldan ii sheeg waryaa yaa tahay markaad aniga igu qeylinaysid kan waa bistooladee dadka aan jeclaha loogu talagalay adna waxaad ka mid tahay dadka ifka saaran aan ugu necbahay maangaabkii xalay wuxuu ka warhayay siduu dagaalka ku bilowdo keliya balse anigii waxaan aqaanaa sida dagaalka loo bilaabo iyo sidoo kale sida loo soo afjiro aniga fursadaha qaar waa iska beerdarayn karaa laakiin babanaa inuu dhinto iskama beerdarayna waa go'aanaan gaaray jid ninkan fursaddeena uu naga beerdareeyey ninkaasna weerar ayuu soo qaadayaa intuu kunnaa weerilahay waa inaan qabtaa aniga gunnaa babanaa haddeertaan libaax dhaawacee waaye anaga libaaxaas godkiisa ayaanba ugu galay laakiin mararka qaar libaaxa codkiisa sida bisadiyo kale ayuu noqdaa isagana sidaasoo kale ayuu noqday waxaa la gaaray wakhtigii adigu waa dhuuma lahayd haasho geerida babanaa way soo dhowdahay qoryihii meydkiisa lagu shida lahaana mar hore ayaa la diyaargareeyey horta waxaan waaye hal codsiyaan wata aniga ninkaas horta laf dhuntaagan ugu noqda gabartaydii uu ka dhamaala'aya haddaad qamarji tahay gabartayow iga soo ag wareegin minaa rabta dil saa rabta ka yeel gunnaa saaxiibadaada ku soo wicayso xaggii joogtaana soo hadal aniga intaan joogaaye meel walbood adiga aad joogto waan ku baryayaa caawa ila kulan waayahe jar taleefanka
kaale hadda waxaan muhiim yahay maadisa gabadhan waryaa adiga jacayl waxba kama taqaanidee godadkaa ku dhuumataa sida babanaha jacaylkeeda uu dhab iiga yahay ayuu gabadhan jacaylkaana hooy dhab u yahay yaa asbixi mahoo kan walaalka inta maxaa kasoo doontine kaale intasaa ku timidno kamalaa milaa ikaafiyo kowsar dhammaantooda maarknona waa kuwaasa xaggee fadhiyaan yaaqee saaxiiboo dhiil fiicanaa ku dhifatee ii sheeg yaa ka dooratana maya abow aniga doorasho ma sameynan yaaqeese wax ii kaa an ii doorteenno abow yaa jeclaha meeshaan fiiribe gabdhaha dhan yaaqee walaalkooda iga dhigteen aniga fiicanaad samaysaan laakiin gabdhaha si xun in loo gala maaha waa in laga faa'iidaystaa sida reerka loo dhisan lahaa waaw cajiib lakala cajiib banaa yaaqeeyo hadalkaaga wax baan ka qaatay aniga waxay socon dhab ma tagti hey ilaaha kaaweyn anoo rabaa been ina sugu afuufay ayaa shidantaa walaa aniga hore uma aanan cabsan jirin laakiin hadda cabsiya ay soo gashay adiga hore waxaad ugu dhaaratay babanaa inaad dilaysid aabbaheena babanaa ayuu u tagay si weliba adiga laguu dilo aniga la'aantaada ma noolaan kari hawni akhe dumar oynays aniga indhahan ku arka malihi nin walba horumar gaarayna horumarkiisa dumar unbaa ka dambaysa wiilasha inta badan waxay ka fikiraan saaxiibadooda maalin un inay khiyaano ku samayso balse aniga ayaad ba cimri dheerihii tugaysaa maaha hadda kadib wadda aan kaaga tegi karan mau jirtaba hooyaday baan ku dhaartay gunaagaan ku horfadhiyay wuxuu kaa ballanqaadayaa noloshaada intikaar siishuur haweenka waxaan miyaa lagu tilmaamaa ramu wiilkay aniga dhowr jeer ku jee waxaan iska daya kuna wiilkay maxaa iska gidii waas waxaan wiilkay soo kac oo ku bariya soo kac indhaga la qaad aabaaga ku jee wiilkay oo ku bariya maxaa isticmaashin waxaan iska dhaafso kumani aniga maxaa sameynaysaa wiilkay waa ku bariya soo kac aabaaga wiilkay babu waa ku bariya wiilkay barda waxa uu noqsanahay anigana iska geedaa waa ku bariya sameynay midaan waa ku bariya babudu waa ku bariya wiilkay badbaadi dhalinta waayahan daba soo kacday waxaa u malaysaa degdeg inay ku dhasheen waxay la mid tahay noloshooda baabuurtii tartanka iyagoo ku safraayoo kale mar ganacsiga haddii uu guulaysto hubaal macmiil wuu yeelanayaa ganacsadahana alaabta in la iibsado waa u muhiim adiga walaalka balaayadan haddii aadan ka reebi karin aniga macmiilkayga ma celin karo ilaan canshuur ayaa i sugaysa i dhegayso aniga nin xun waan ahaan jira ilaa iyo haddana kii xumaa un ayaan ah sanooyin badan qalbigaaga necab haddii uu ku jira waxaad sugaysa wakhtiga saxda ah waxaadna isku dayda hore inaad u celiso albaabkayga fura baliis albaabkayga fura kadib ma taagnaa kara aniga iga fura albaabkayga fura laakiin isaga madax adayga aad daroogada uga ilaalisay aniga xataa wuu iigu jiray waana kaaga mahadcelinayaa middaas haddaba ii sheega hubka aad diyaarsatay aawe
naboleon bonaparte haa wuxuu leeyahay awood adduunka idil ugu guulaysan karo haddaba waxaad ogaataa yurub oo idil asaga ayaa maamulo waxaana laga yaabaa waddan yar gadaal inuu ka soo weeraro isbaanishkan oo iska indhatiro laakiin wax walbo isagoo iska indhatir misna uu yaraystay ugu dambeyn isbaanishka ayaa dili doono asaga ayuu u dhashay noloshiisana isaga ayaa dhammaynayo sheeko wanaagsan ayaad iiga sheekaysay naboleon apartment ma dhahday haye aaway haddaba ii sheeg bal qofka anigii mando meedkiisa halka aad ka soo qaaday adiguse halkaas ayuu jiraa shiri orod speaker soo qabo markaas ninka isaga istaan ka dhigay waan ku qasbanahay khamri la kabiisa inaan siiyo orod soo qabo Goodbye, Sishu. sisho libaaxaas godkiisa ayaan hadda goor ugu tegay mala socdaa walaalkay meedka ma gubtidooyaad noloshiisa si fiican aa u taqaanaa soo maa dhaqso maxaad sugaysaa maa gubti marka adiguse babanaa wiil buu dhalay ileen aniga mas ayaan korsanayay aan faraqa ku haystay inaad ii sheegtaan ayay ahayd haddii aad mar hore ii sheegi lahaydeen maskan caanahan siinayo ayaan sun ugu dari lahaa gunnaa anaga fursad noomuusan ahayn ee wuxuu noo ahaa maqaalintaan wax ku dabaynay ma fahanti hogow dhibic walba oo dhiigoo daata sheeka ayay leedahay maalintaasna sheekadeeda inaad dhegaysato diyaar mu ahayn balse haddeertaan soo maaha i dhegayso anaa kaaga sheekaynayo si lagu arko 7 qalcadood waa in loo soo dhaafaa si korkaaga loo taabtana 7 jeer waa in loo dhashaa soo ma dhihin hadda kahor adiga qofka korkaaga raba inuu taabto hal nolol kuma filnimiyo
aniga miyay qof mugdiga ku hoos dhashay sidiisa bannaanba hifkana waxaannu saaranahay ilaa hadda nafteeda ammaankeeda aan u sugayaa inaan dadku caddeeya aabbee inaad tahay hooyo qaladka waa abbey geystay aniga maxaa leegu ciqaabayaana munay dhegayso si walbad aniga aad ii bariso adiga hooyadaa waxaad la kulmaysaa mataqaanaa xilliga aabbaha meydkiisa la gubaayo oo keliya أنا كان ويلكيجا عاي دافي أخبار وانا ويلكيجي دقيسو لو ما بحنا دقي سكول كنا ديد محدود دي سبب وهذا واحد كلية يكوسين كرتو أيه وحبرشوا كلية عبرتي قال عن كده سكول مروان دت كده أن مركنه ويعاوي أنا وحرو قف إن قراع بكرتو ما كده عبرتي قال أبي قف حمس أي شيء كده عبرتي أي شيء أنا كتو أبي قف حمس أذكر محي وعاوي أبا سامحي دوين wiilkayga si qofka bini'aadanka uu nolol qurux badan ugu noolaado waa inuu go'aansadaa si walbay ahaataba go'aanka isagaa laga rabaa barbati aniga go'aan waan gaaray hadda wixii ka dambeeyay xumaan oo dhan waan ka tagay waana ka tanaasulay iska jir wariyaa ha soo gelin gurigayga cagahaagana ha soo saarin waabad naga tagtee maxay tahay sababta aad noogu soo noqotay hadda maxaa dhacay barbati waqtigaan xumaa orod iska baxay ay dhahday markaan soo laabtay anigoo qof wanaagsan ma sidii ayaad weli ii cadaadinaysaane soo gali ma dhehaysid barbati markan khaladkayga waan fahmay hal mar oo keliya iska kay cafi balan waxaan kaaga qaaday haddii aad cafiso adiga iyo wiilkaagaba noloshiina in aan ogaan doono fishwaa kaale wiilkayga wiilkayga britfi ayaan ku dhaartay hadda wixii ka dambeeya daacadnimaan ku noolaanaya waa ku barayaa hal fursadoo keliyaysay barbati waa ku barayaa fursadiisii kani waa 10 jirka fishno wiilkayga mid ogow hadda kadib ciddii magacaaga ku weydiiso fishwaa ma noqonayo ee magacaaga wuxuu noqonayaa mataqaanaa gunna oo keliya hal mid kale aan kuugu daree waa farqiga u dhaxeeya xumaanta ma wiilkaygii war wiilkayga ma waa mid luuq mugdiyo ku dhashay iyo waqtigayga iska luumin u sheeg maadaama babanaha xabsiga dhexdeeda qof uu ku dilay waa la iqaawo 6 bilood oo xabsi ayaan galay aniga ganaaxana waan soo dhammaystay shaqada dib ayaan ugu soo biiray gunnaa runtii aniga waqti dheer ayaan soo murugoonayay ereyga booliisku waa calaamad oo keliya yunifoonka muxuu qabanayaa babanaha oo noocaas u yaalo haddii anagoo noo talinayo booliskan siduu doono uu ka yeelanayo isbatoore adiga yunifoomkaaga lee xirnaaw waajibaadka soomaa anaa gudanaya dhalinyaro hadalkayga si fiican u dhegaysta laga bilaabo maanta waxaa loo baahan yahay
khaladkiina iska ilaalisaan hore haddii aad khalad usoo samayseen waa inaad dib u saxdaan si bulshadaad hoggaan u noqotaan dhalinyarta hadda soo baxa ayaa tihiin hoggaanka dalka waa inaad haysaan berita mustaqbalka dalka ayaad noqonaysaan oo qabsiyaarkii mudan waxa waaye aad waxaa ka hadlaysa uma dadka khaladka geysta awaaniyeysa laakiin aan khalad ma geysanin be haddiiba khalad geysanin macaliga waaniya mii sheegi kartaa iyaa kamabana yarkiismo wiilkiisa aan solo fiir markino kiis bug ee dusha laga saaray maxaa karabtaa bacra la geliyey ugu dambeyn adiguse halkan waad imaaday shaqo fiican ayaa qabatay mar walbana waxaan ku leeyahay cadaaladda ha sarayso way guulaysanaysaa khalad yar haddii uu kaa dhaco taas micneheeda waxay tahay hubiyadu ku quusaysay maadaama aysan ogeyn cidda adigu aad tahay ciyaartaada si fiican ay ogyihiin balse haddeertaan wixii ka dambeeya waa ina taxdirkaaga u bata adiga isku badnaaw cabsida way iga dhammaata aniga hadda iyo wixii ka dambeeyana lagama yaabo aabbe inaan ka cabsado gunaa waan ku jeclahay dhehno jacaylkayga inayga ayay kaaga muuqdaan soo maaha nolosheeda inta kaarsan waxaan kuu ballan qaadayaa sidan inaan kuu jeclaado ahay daaqadan kaa soo fiirinayaa meel ha aadin bartaada taagnow شيشو معك كودا شيشو أقولها بدباد شيشو معك كودا شيشو إلى هذا نعم كده حي ويلي يا أبيس ويل كان أبيس أي ودميه maxaad markaa aniga ii celisay booskayga waan ugu ari lahaa sababtaad ii celisay maxay tahay in aniga ii sheeg hadal adigaan ku weydiinaya ii sheeg maxaad iga celisay aniga waan ugu ari lahaa arkaranaayo anigu balan baan qaadayniyow qof walba goobjoog ayuu ahaa shiiri nin noocan oo kale hore umaan arkin shiiri hooyada dhulka xataa way ka samar badan tahay aniga xataa wiil ayaan dhalay wax walbay ahaataba babanaayow anigu waxaa kuu sheegayaa wakhtigii la gaadhay halkan inuu dhiig daadiyo keliya muusan imaan shiiri ee wuxuu u yimid taariikh hore in uu baaro lacalla aniga haddii aad dhinto yuusan kaa badbaadinaysan ii ballanqaad isagoo keliya maahane macal familkiisa inaadan halka reebeen dhulku waa u wareegaa qof walbana dunida meel walbuu kaga nool yahay 24 saacadood oo keliya ayuu haystaa annaga meel walba ninkaa waannu ka soo saari karnaa kolka aad soo qabato ayaad booskaaga u aari kartaa arya شيشو 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 معك كودا شيشو شيشو إلى هذا كسينا كودا شيشو إلى هذا شيشو يا مركينو شيشو هذا ما يصير هذا يا warba banaa marba haddii ay ka booday waay baanu dagaalamaynaa annagu waanu inaannu is-afgarad samaynaa oo aannu midownaa adiguna waxaa lagaa doonayaa hogaamiyaha ganacsiga inaad noqoto gunaayow maxaad ka leeday runtii waxaan isdhahayay iyo waxa iga hor yimid laba kala duwan waaye anigu waxaan isdhahayay ninkaani argudsi ayuu nafta isaga ka qaadaya siduu adiga kaaga argudsanaya laakiinse haddaad codsiyaad i weydiisanaysaa kollayba aniga nin ganacsado weynaana magaalkao dhanna waa laiga yaqaanaa haddaaba doonaysad aniga inaad shirka ila noqoto waa inuu gunnaa dhintaa maxaa yeelay gunnaa intuu noolyahay aniga adiga shirka kaas anigoo keliya igu daaya
aniga cad u jari doono oo ka aari doono wax walba uu sameeyin aniga ka matadji doono oo dhigtii afka ka keeni doono aniga karilaayo ka joogintaasaa ku filan intuu karilaa ka imanayo hana neefsadeeda gunna hey قلنا واي قلنا أسوي قلنا ماي سلسلين دنيا يقول لنا هاي عبسين وكبرية سيشو 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 ariga gunaayo maxaa ku helay si dhaqsiyaad keli ku noqotay imika haddaad midkan asturto biris waxna mid kale aad asturide adaa saaxiibo samaystee dulqaado horbaasiriyo nolol haddaan kugu sii daayo waxba libaaxayn iyo faataabakha noola iman baa ku hor imika si shuubaad gubtay soo maa goldan iyo midka kale laxdaa inaad gubtana isku diyaari baltaawa goldan ay israaceen goldan ay israaceena هاي صاحب محتها صوبت هالكن إيه كنتينا anigaa kuu sheegaya xal waan ku siinayaa ariga golden fursadda habiya ayaa ku soo martay haddaad doonayso ninkaa booskiisa inaad gasho ka labalabayn waa inaad baanta racjasha dhaafisaa ما يصاحب اسمعني كتب هيديني وكبر يا ها جولدن soo hadal garaashka ayaan kugu sugaya waan cabsanayaa dhaqso soo kaale adiga meel ha u dhaqaaqin meeshaada anaa kugu imaanayo قلنا بوتر horteyda ayaa lagu dilay aniga fiirsanaya ayaa la dilay kawaya ka siiyay aniga waxba waanu qaban waayay waxa waanu tiri waayay aniga saaxib dhigaysa aniga inaad dunidii wacdaysid ma doonayo balse adiga meeshaan ha ka soo bixin weceladaas qalad walbay geesteen aniga ka jaasinayo okay xabsida iska daa adiga anaa kula jiro قلنا shirih قلنا xaggiina ayuu soo socdaa idinkoo diyaarsaneen hadduu ninkaasi idin soo gaaro la socda dhammaantiin wuu idin baabiinayaa waa inaad isdifaacdaan
hey hey Warya Guna waniyow si wacan ii dhegayso anigu waxaan kuu sheegayaa dhaxalkii aabbaha inuu yahay mid kuu yaalla sidoo kale waxaan arkayaa inaad adigu leedahay awood aad iyo aad u sarraysa oo aan la celin karinba laakiin waxaan kuu sheegayaa dhimashaa lagu argudaa sidaa darteed maadaama shishuu uu kii kale u dhigmo iminka waxaa la isweydiinayaa babannaa ciddii u dhigmi lahayd ilaan xisaabihii aan isku bixinay babannaa baa ka soo haray shirri ow aniga ayaa kuu sheegayo midda koowaad waa canugan hooyadiisa tan labaadna waa ganacsigeenna aniga waan ogaay canugan inuu khiyaano leeyahay misena oo anaga naga khiyaanayo sidaas ay tahay meelaan wax ku ogaaday haddii uu aniga badeecadeyda iigu keeni waayo 5 daqiiqo hooyadiis ayaan lisayaa beenna ma sheegayo nin waxaan ahay hadalka uu sheegaya ka dhabeeyo orod badeecadeyda ii keen haddii kale dhimashada hooyada ayaad markhaati ka noqonaysaa cid iiga badbaadinaysana mala hooyada waan kuu digi digniinteedana waa inaad qaadataa wiiliyo ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮಾಲ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ macaan waa ku dhammaaday hooyo gacanteeda ay fadhisa ayaa karisay laakiinse maxay kuugu taallaa waxay dhashay wiil idab daran oo dadka waaweyn ku soo warcelinayo aniga cunto noocaan oo kale ah mar hore ayaa iigu dambaysay habarteed ay xasuusiseen haye weligaa ma ii samaynaysaa cunto noocaan oo kale ah maxaa dhacay dhadhankeeda kama aadan fahmin miya sunayaan ku daray waxba ha baqin hana welwelin aniga hal wiil oo kaliya ii joogo mar walbana cunto macaan in aan siiyo waan caadaystay si nabad leh cuntadaada isaga cun aniga waad ogtahay wiilkayga in uu xiran yahay laakiin haddeerto xabsiga sababtooda ugu jiro adiga inaad ogaatid ma doonaysaa oo diyaar ma u tahayna waan kuu sheegayaa dhegayso mudane waan ku baryayaa yaaqay wiilkayga aabbihiis hal shaqo oo nadiifa leh ii siiyey aniga ma rabi inaan sidaan ku sii noolaano bas keliya waxaan u baahanahay shaqo nadiifa inaad ii siiso maarta fiir xaalad adagan ku jira
darawalkaana ujeedi markiino waa koow anis isuwa saddexdan gabdhan inaa ka xayaa liga rabo kutuwa wareer maskaxda iga qasi anaa isku dhaxyacsan shaqa maaya iga tag yaaq mudane adigaba haddii aa ogolaato si nabad leh ayaan meeshaas kugu geynaya waana kugu soo celinaya keliya waxaad samaysaa shaqadan iyo ogolow mudane waryaa doqonyo maandooriyaana lagu qabto anaga sid weliba isagoo sirtiisii waxyaabaha kale isticmaalo ma fahanti 2 maalmo gudahood badeecadan haddii aan meel ku qarin weyn waxaad ogataa inaan dhammaan doonto wax walba la ogaanayo war naga aamusa doqomaya sid saddexdeenaba isku mid ayuu naga dhigay sooma cadowgaaga markii aad u baahan tahay in aad ugaarsato keliya waa in aad fiirisaa meesha uu ka jilicsan yahay qiimahan khasaaranna saraakiisha ayaa bixin doona sababtoo ah qof walba meel ayuu ka jilicsan yahay gabdhaha yar ka waran gabdhaha yar haddii aan ku wareejin waxaad ogaataa heshiiska inoo ogolaanaya su-aasha waxay tahay gabadha yaryar xaggee laga keenayaa barbati babanaha maskaxdaada caadi maaha ha sameynay sida waayahay kabarmal haddii gabdhaha ay wax ku dhacaan badbaadadooda waxba nagama gelin muhiimadda waa dhimashadooda maya fursad ayaa la yidhaahdaa بدر وكتوها بدر بدر بدبادي يا اخوي وتيت بدر وكتوها بدبادي qofkii qoorteyda qabanayay bal fiiri lugahayga ayuu haystaa tanoo kalena fursad ayaa la yidhaahdaa saraakiisha ma aragtay kuwa xabad aan ka laabanin laaluush marnaba ma qaataan marka arrintan qof qiimo leh dush inaa ka saarna weeyaan xali adiga lacagta 2 meel waa inaan kala qaybinaa kuwan boorsadaha la geliyay lacag fara badan waatana waa haynaa haddii kadib wixii laga bilaabo adigaa boos noo ah adigaan ka amar qaadi doonaa waryaa xaraami oo saqajaanka ee 3 gabar masaakiina ayaad u dishay si aad lacag u heshid lacagtan wasaqda eh ma aqaan wax naga soo doontay anaga inta nadiif ka fogay nolosheena way qurux badneed nolol nadiif aan ku nooleen maxay tahay sababtaad noogu soo noqotay ii sheeg maxaad noogu soo laabatay maxaa kugu soo celiyay nolosheena waryaa jooji barbati kale lacagta waa la soo dhacmaya ku qoranna war gaajada ku hayso waxaa lagu hal lacagtan haddii la soo dhacay haddii kale lacag waa lacag waxyaabahan aad samaynaysid ma lacag xun darteed ayaad u samaynaysaane qalad weyn ayaad ku jirtaa oo weliba dembi ah laakiin ciqaab la'aan ma kugu dhacayso barbati kale boqortooyadan aad arkayso in muddo ayaan dhisay adigana waxaad doonaysaa si fudud in aad ku burburiso soomaali laakiin wax ku soconayo maata waa inaan ku dila abo kutuwa horteesiida maxaa ku haysataa wax walba anaa kuu sameeya oo kutuwa baa horteesiida iska dhaaf oo kutuwa anaa kuu sameeyaano anaa kuu sameeya hadalkayga ma qaadanaysaa diyaar waaya xabsi ma gelaysaa maya dheh wiilkayga ha yeelin maya dheh iska diid waa ku baryaa biliis xabsi waa galaan hey mambo kiiskii isaga wiilka waa in aad dusha ka saartaa isagaa xabsiga gelaya maamadana bannaanka ayay joogaysaa kadib way aamusa bishwa wiilkayga aabixin hooyo waa ku baryaa wiilkayga ha yeelin aamus istira mashiino yahay ma waxaad rabtaa wiilkaaga si nabad leh inuu xabsiga ugu jiro mise waxaad doonaysaa tallaabo dheeriya in aan qaado isku xishawriyaa doqonyo wiilkaaga ayaad rabtaa xabsi inaad gelisid aabbana waxay tahay adig haye barbatii kaale wiilkaaga markii uu kuu dhalinaya ninkaaga ma joogayna mideeda kale cunugaaga wakhtiguu soconayo ama gurgurashaalka uu bilaabaya guriga cidlo sooma ahayn cidladaas ayaan kuugu imaanaya anigoo sheeka isdafaa aan kuugu samaynaya kadibna adiga wadafa ahaan ayaad ii qaabilaysay oo wax walba saasay ku dhammaaday marka isdeji hadda sidaa darteed maba huu wiilkayga inuu yahay haye wiilkayga miya okay dhegaysa haddaba ha iloowin 3 gabdhood sidaan u gubay si la mida adiga wiilkaaga inaan idiin gubi karo
farxad badan ayaad dareemaysaa markii aad adiga xumaanta ku dhex nooshahay. markaas kadib aniga go'aan waxaan ku gaaray mataqaanaa wiilkayga saddexdaas xaaraami gacantiisa in uu ka uga siiyo al ultimana gacantiisa ayuu ku dilay. adiga waxaad la yaaban tahay soo ma ahanne wiilkayga aabbihii siduu u dilay oo weliba gacantiisa ugu ciqaabay soo ma ahanne misna gacantiisa ugu gubay laakiin kaas aabbo oo kaliya afka ayuu ka ahaa. waxaad ogaataa wiilkayga waxa uu sameeyey inuu ku saxsanaa waayo qofka haddii uusan waalidnimada istaahilin wax faa'iido male laakiin aniga wiilkayga caloosheeda ayaan ku soo qaaday anigaa dhalay. marnaa waa wiilkayga xalaasha ah xalaal ayaana ku dhalay ogow taas. wiilkayga aniga balantii uu iga qaaday xaqiiqatan waa uu ii oofiyey balse hadda wiilkayga indhihiisa waxaa iiga muuqda mataqaanaa sida naxariis darada leh ee adiga uu kuu dili doono. aabbis nin lix waay maa kuu naxayaaday. waryada yaa ku dhahay dareenka hooyo uu shaqaynayaa. ha wiilkayga aniga amarkayga waa u qaadanayaa maxaa yeele aniga ayaa dhalay waa wiilkayga. aryaa gurnaha hadduu yimaado dekedda bangaloor waxaa kaa doonayaa gebi ahaantiiba sheekadiisa inaad soo afjarto. haddaad taa yeeli weyda qiimahan isaga duldhigay inantaadaan duldhigayaada reema tirtiga. si walba adiga rishadaad u taabato bastooladaada kuma jirto xabad awood leh oo jirkay ka dhex baxayso. yaaniya waxaa sameeyaa manaa ku dhaafa gabadhaa layga dila ilaa naftay ku jirto gabadhaada lagama yaabo cid jirkeeda garaafyar gaarsiin karta. gabadhaada oo kaliya maa qoftaas ogow aniganiyan jacaylkayga inay tahay. arigaa gurnaha iska kii cafi waalid wax dhalaanaya. kollayba hooyaad tahay dareen ayaad leedahay canugaaga xanuunkiisane waa adiga xanuunkaaga waa inaad canugaaga wax fahansiidaa raadkaygaa ka haro haddii kale uu ka shalaynaa. halow walaal gurnaad degada ayuu joogaa. habaryay waayeesha adiga wiilkaaga isku mid ayaa tihiin doqonnimada oo ku dhaqmayana adiga ayaa ku soo barbaariyay soo maa laakiin aniga ima taqaanid liishaa la yidhaahdaa waan u dhammaynayaa canugaaga waxaana tusayaa nolosha silacaa inay tahay baddaa laga ducaysto waan dilayaa adigoo indhahaaga shantaya adigana waa ku kaxaysanaa ilaan odayga waa dhintee waan ku dumaalayaa soo soco. hooyo hooyadeed daa adiga. Guna! Maya! Maya! heshiiskaad adiga ii soo bandhigtay intaan ayuu ku egyahay u dhammay dadkan maxaa sugaysaa. aryaa sitiyo magaalada ha ka tegin baa kule mideeda kala dulsaarkana waan ku siinayaa dee adigu waxaad tiri soomaa mid faataa baklo hadal badan baati laakiin waxaan qaban karaa anaa ku tusaya dee.
كنا سيدايا وريقة فقنا ويلكيغا كنا سيدا ويلكيغا سيدا هذه معاي ورقنتهاي هاي جولدن هاي محاوحل قلنا ويلكيغا قلنا dhabarka ka dalooli ninkaniyow dhabarka ka dalooli ayuu ii dhahay ka waran balse saaxiibtinimada waxay sheegaysaa kan qalbiga inaan ka dalooliyo maya maya gunaa waan u tagay sidaad ii sheegtay baatir soo dilayay dheheen cadowgana isha ayay nagu hayaan cadowga intay isha anaga nagu hayaan qaab kale oo cusub waa inaan u degnaa adiga baantar naga dil dhaqso golden banter ma dili doonaana aniga awood aad igu dishid weligaa ma lahayn hadda kadibna ma yeelanaysid waxaa garatay maa horyaa asxaabteeda qaybo ka mid a waad khiyaamaysay khiyaano waa ku dishay kuwana anigaad igu soo ifisay laakiinse adiga maba taqaanidba dadka sida loo khiyaamay khiyaanadu waxay tahay aniga hadda ayaa ku tusaayo bamana كنا ورياضة جوجية واحد كم يسوى بضيعة عديدة ور أنا أمر لأنت عيد حبة هريدي كرتها ويرات تملل وين نديله يا دمانتينه
soo soco aabbahaaga aniga ayuu i khiyaanay adigana aniga idi khiyaantay marka khiyaanada ma isku dhasheen kollayba maanta gacanteeda ayaad ku jirta oo ma badbaadaysid lagama yaabo dunidan ceesh dambe inaad ka cunto aniga ayaa sidaan jug kugu wado dunida kaa musaafurinayo waan ogahay khiyaanadaada inay ab ka ab tahay laakiin maanta aniga ayaa ka dambeeya maxaad samaynaysaa dadka waaweyn waxaa loogu talagalay xumaanta inay ka hortagaan balse adiga xumaatada adaabaa uuraaye hadda iqaabtaada adiga leh gacantaada isku marsiiye sidoo kale noocaaga inaan gacanteeda ku ciqaabo maba doonayoba babbanaa howshiisu way soo dhammaatay badeecada goormay nagu soo wareejinaya aniga hooyada ayaan ballan ka qaaday wiilkayga ballan iga qaad hooyadaadii ku dhashay ballan ka qaad inaad xumaanoo idil baabi'in doonto wanaaggana weliga aad ka shaqaynayso ood xumaantoo dhan dhammaynayso babannaa boqortooyadiisa iyo xididada daba socda aniga dhammaantooda waan wada baabi'iyey isbad hore mactali warkuwaan ii soo xir waa run malaaya raadkiisa imbiyaa laga dhex arkayni balse gunnaa malaaya ma ahan ee waa yaxaas waana qof aan dabeecad lahayn misna macno leh cadaaladdan yaqaana